الله وبركاته. مقعي محمد جامع علي oo idin socodsiin doona xiisadeenan marka xiisadeenan maanta waxaynu ku qaadan doonaa xiisadeenan waxay noqon doontaa xiisadeeni saddexaad ama maalintii saddexaad ee aad xiisada gashaan xiisadan maanta ah waa xiisad aad u muhiim ah waxa aynu ku qaadan doonaa quraafaadka beenta ah ee dadkan Soomaalidu badanaaba ay ka aaminsan macdanta iyo waxyaalaha soo dhan waxyaalaha quraafaadka beenta ah ay ka aaminsan yihiin waxa ay ka aaminsan yihiin boqolkiiba 90 waa been boqolkiiba 100 oranay boqolkiiba 90 waa been wax kamid oo dadka qaarkii aanu ka maqalnaa waa run marka maadaama oo dadka badankooda aad maqashay inay wax ka sheekeynayaan iminka tusaale ahaan macdanta jiman iminka tusaale ahaan qodobadan halkan ku soo qoray oo kale waa 5 qodob weeyaan 5ta qodob waa qodobada ugu badan ee dadku ka hadlaan ee beenta ah ay ka aaminsan yihiin inay macdanta marka qodobadaas rabaa inaan idin faaleeyo oo aan idin fahansiiyo waxan marunba maxaa ka runa maxaa ka been marka macdanta jimanba leh oo ilaashada imka qodobkaas oo kale waad maqasheen in badan ma filaya in run yahay inuu been yahay maanta in falanqeyn doono ninba lagu dardaray inay macdanta isagoo baaranaya tusaale ahaan qodobka labaad saad ku arkaysaan waad maqasheen ninba lagu dardaray iyadoo la leeyahay dadka macdanta gurtaa way waashaan dadka macdanta gurtaa way waashaan taana wad aragteen in la leeyahay qof ba macdanta gurto waashay beri ninba dhinac qalalay intuu buur qotay beri ninba dhinac qalalay u qalalay tusaale faaliga oo kale qofka naafu dhinac ka noqda Sooma marka saasoo kale ninba dhinac qalalay intuu macdan qotay marka bal waxa qalajiyay ku sheegeen iyagu waxa weyn ka hadlayna marka maxaa saameeya dadka marka la qodanayo macdanta taana si guud ah uga hadlayna qodobka ugu dambeeya marka qodobadaas rabnaa inaan falanqeyno waxa kale oo aan rabaa inaan idin falanqeeyo kuwana waan idin falanqeyn doonaa unidyadan hal sv tusaale ahaan Seifert halkii Seifert wuxuu kula mid yahay 1000 milligray Seifert halkii Seifert waxa uu kula mid yahay hadana inay 100,000 oo u Seifert marka intaana waan idin fahansiin doonaa taana waxaan uga jeedo calaamadaana waan idin fahansiin doonaa iyadana waxa laga wado saacadana waxa loo isticmaalo waan idin sheegi doonaa marka intaas raba casharkeena maanta iyo intan oo ah radiation waxa la yiraahdo weeyaan tanna iyaduna waa radiation ka laga hadlayaa radiation ka saameynta inta ugu saameynta badan leh radiation ka dadka saameeya marka ayaan kaga hadlaynaa halkana marka insha Allah weynu radiation ka mid walba tusaale dental clinic radiation ku soo daayo chest radiation ku soo daayo Fukushima 12 March tusaale inta radiation ka Fukushima ka soo baxday spine x-ray 1.2 inta radiation soo daayo marka waxa seen rabnaa inaan ku falanqeyno qaybtana marka intaas oo qaybood baan kaga hadlaynaa inay xiisadeenan maanta ah وانا 10 aad muhiim waa xiisad aad muhiim ah oo wax badan aad ka fahmi doontaa insha Allah ta'ala iyadoo waliba aan video kalena idin daawodsiin doono oo isna macdanta imika tusaale macdanta radiation ka loo kale ee sunta ah tusaale ahaan hadii ay ku taabato jirkaaga waxay yeelayso marka kuwaana waan idin fahansiin doono mid kamid ah oo uranium baa la yiraahdaa marka taana waan idin bari doonaa iyadoo soo weeg tahay iyo meelaha laga helo iyo midabkeeda waxaana waan tus doonaa insha Allah marka hadan macdanta jimanba iskale taa hadan ku horeeyo qodobka koowaad macdanta jimanba iskale horta sideedaba macdantu san horaba u sheegnay macdantu waa shay natural ah oo dabiici ah oo dhulka ku beerma marka maadaama uu macdantu tahay wax dhulku dhalayo oo natural ah natural waa dhagaxa caadiga banaanka yaala ee aad aragtay dhulka dhalay kumanaan sano ka hor fulkaano qarxay ayuu ka sameysmay dhagaxaantan imika waxaad arkaysaa dhagaxaan sida biyaha u shumay oo kale waxaad arkaysaa dhagaxaan wax isku tagtagay oo adag hadana isku adkaaday waa raadiye waa intay soo waxa weeyaan waa fulkaano qarxay bir hore tusaale buuraha dushooda kale waxaad arkaysaa inay wax aad moodid sibir oo kale adag oo ku dhigsan dhagax sibir oo kale ku noqdo sida sibirka loo gulay oo kale marka waa fulkaane iyagoo biyo ah ayay fadhiisteen meesha kadibna dhagaxaas ay ku noqdeen way ku adkaadeen
marka sababta ay sida sibirka ula ekaadeen markii hore biyo yahaayeen oo buurta ka soo baxay waxan marka waa saas oo kale waxan dhagaxan lagu sheegay macdintuna waa natural isagoo caadiya ayuu dhulku dhalaa marka sida exactly dhulka dhala macdinta haddaan tusaale idin soo qaato sawir ban halkan idin soo dhigay imika tusaale ahaan dhagaxan soo ma arkaysaan dhagaxan dhulka dhalay marka meelo hoose laga soo qodaa badanaba meelaha biyuhu ku badan yihiin webiyada dhinacyadooda ku dhalaa marka dhagaxan saad arkaysaan wuxuu u soo baxay sida mudacyadu u soo baxay saad arkaysaan waxaad moodaa waramo dhulka ka soo baxay marka saasoo kale u soo baxaa wuxuu ku dhashaa webiyada agtooda oo kale dhagaxaasi macdinta badankeeduna saasay u dhashaa badankoodu quartziska dhagaxaantan amataiska iyo dhagaxaan kaloo fara badanba iyo emerald xataa laftiisu marmarbuu saa noqdaa u dhalaa marka exactly saasoo kale u dhala dhagaxaantan oo dhan marka dhagax baa dhala dhagaxan imika aad arkaysaan dhagax baa dhaluu saa uga soo dhex baxaa oo sida wuxuu u dhalaa imika hooyadu sida ilmaha u dhasho ayuu kana dhagax u dhalaya marka dhagax buu kasoo dhex baxaya isagoo mudacyo ah dhagaxatay ciida qaarna ciiddaabay kasoo dhex baxaanoo dhagaxiyo ciida oo jilicsan bay kasoo dhex baxaan sida mudacyada saa uga soo dhex baxaanoo isagoo waramada alu saa uga soo dhex boodaya qaarna dhagax caadiyo adag bay kasoo dhex boodaanba marka badankooda macdintu way kala duwan tahay badanaaba haddaad imika tusaale ahaan meelo aan tegay oo kale dhagaxan haddana aan quartziskii saxda ahayn oo haddana sida mudacyada u dhaldhalayo waramadaasoo kale sidaas waramadaasoo kale usoo dhaldhalayo dhagdhagdhag oo baxayaa jira laakiin dhagaxaanta aan arkay way ka jilicsanaan kuwan oo may ahayn dee sida quartzkan caadiga may ahayn laakiin wax yaroo jilicsano khafiif ahayn marka ayaan waxba hadal kugu daalina dhagaxa waxa loo yaqaano macdintu waa wax natural ah oo dhulka ka soo baxa saynu wada garanayno oo cid lama jirto waa sida dhagaxaad cid inaguma qabsanayso birtan aynu shiilanaa dee waa dhagaxa dhulka laga helo cid inoo raacdaa ma jirto oo la waa saasoo kale macdintuna waxan yaan laydinku sheegay khuraafaad waa been waxaas marka intayna waxaa beenin bal horta sababtay khuraafaadkan dadka aaminsiisay maxay tahay macdantan qolaale ayay ku oranayaan oo ilaashanaysa markaa qofkii taabta ee badooda gala waa lagu dardara qola ilaashanaysa lagu oranaya marka macdantan cid lama jirto waa waxa naturalka ee dhulka ku abuuran inaynu ka faa'iideysanana weeyaan oo inaynu ka faa'iideysanana loogu talagalay waa sida dahabka aynu qaadanayno xidhanayno aynu electronic ugu isticmaalno waa sida kobarta aynu intaynu dhulka kala soo baxno aynu xarkaha waayarada dabka qaado ku xidhayno waa sida birta ama silfarta ama aluminumta aynu intaynu soo qaadano aynu ku isticmaalayno dee alaabaheena aynu ku isticmaalno iyo waxayna aynu uga baahanay arrimaheena ku fashayno birta tusaalahaan weynaga waxaasoo intaasoo shay u isticmaalno gawaadhiyadaynu ka samaynaa moobiladay ku jirtaa birtu waxay ku jirtaa wax kasta birtu way ku jirtaa wax aanay beri inoogu jirin maba jirtaba markaa saasaynu isticmaalinaa waxan wax jin leeyahay maaha laakiinse dadkan waxbaa ka shekisiyey waxa la yidhi wax walba waxbaa keena wax kasta waxbaa keena maxaa sababta waxaan ku keenay dadka inay maskaxdooda gasho waa maxay talo waa maxay dadkan iyaga laftooda waxba iskama dhaleecaynayaan laakiin waxbaa ku beeray waxaan sabab waxbaa ku beeray laakiin wixii ku beeray qaybtan dambe ayaynu kaga hadli doonaa oo waxa saameynta ku keena maxaa saameeya dadka marka la qodanayo macdinta taasina kaga hadlaynaa waxa saameeya halkaasaynu ku ogaanaa marka ninbaa lagu derderay horta wax la derderaa ma jirto taasina waa been haddan idiin sheegaya wax macdan lagu derdero iyo macdan baa jin leeyahay ma jirto oo waxaan jirin taas wax sil iyo raad toona lahayn dadkana waxaan u sheegayaa wax aan caddayn qofku aanu caddayn u hayn yaanu kaa dhaadhicin weliga ayaa lahaa waxaan caddayn loo hayn yaan lagaa dhaadhicin waxaanad arkayn oo taaban karin oo cilmina lagu ogaan karin yaan weligaa lagugu sheekayn wuxuu waa in saameyntiisa iyo problemkiisa aad toos u aragtaa dee caddaynna lagu keenaa imika haddaan wax bilaa caddayna kula imaado dee qof iska hadlayo unbaan hay sooma wixiina kuma fahansiin bacna waan kugu xidho qofkii maskaxdiisi waxaan geliyay wax khaldan oo uu ka baqayo wixiina uma macnayn wuxuu yahay marka waa inaad shaki la dhimataa wax yar u jirtaa marka waa sababta dadkeenani macdanta ay uga baqayaan ee badankoodu khuraafaadka ugu aaminsan yihiin marka waa saasoo kale marka nin baa lagu derderay ma jirto waa wax beena marka waxba ma derderaan qofka in radiation taabto radioactive wax la yidhaaha jira oo qofka saameeya
oo xaddi radioactive ayaa meel walba laga ogol yahay inuu ka soo baxo jirkaagu loogu talagalay imika tusaale ahaan jirkaagu wuxuu saameyn radioactive-ku midda kale maanta oo dhan marka lagugu hayo tusaale ahaan saacad baad fadhiday meel radioactive leh radioactive-ku maaha markaba wax markuu meelaha horta kale radioactive badan radioactive-ku wuu kala awood badan yahay radiation-ku kala awood badan yahay radiation-ka waxaa jira mid ay soo daayaan bahalahan hoosteenu ku arki doona casharada hoosteenu ku dhigan doona imika aan idin tusiyay radiation-du way kala awood badan yihiin nuclear-ku waa radiation isiga laftiisu uranium-ta macdanta la yidhaaho wax radiation-ku aad u badan yaho uranium-ta jirta oo radiation-koodu aad u badan yahay marka la baarayo marka uranium-ta oo kale dee saacad baa lagu eegayaa radioactivity-ga intuu yahay dhag uranium-tuna maaha wax iska kaa saameynaya maaha mar aliya markaad u dhawaatay ee aad taabato inay radioactivity-gu ku taabtaa laga yaabaa marka jirkaaga taabato marka jirkaagiiba wax yeelaysaa radioactivity-guna waxyaaluhu sababa waxaa ka mid ah inuu diirku kaa dhaca iyo inuu kansar kugu dhaca iyo radioactivity-gan electromagnetic weeyaane electronigyada iyo waxaa kasoo baxa kaas radioactivity-ga electronic iyo waxyaalaha kasoo baxa ayaa isagu electromagnetic radioactivity baa la dhahaa isaga marka kaa weeyaan ka horta kansarka keena kansar buu kaas sababa oo tusaale ahaan haddii maanta oo dhan x-ray lagugu qabto inkastoo radioactivity badan soo deyn marka dambe jirkaagii uu shaandhoobayaayo kansar baa kugu dhacaya tusaale ahaan hoostaynu ku baran doonaa bal waxyaalaha sidaa loo iri ayaynu hoosta ku arki doonaa insha allah marka taa halkaasaynu kaga imanaa taasi waa waxaan jirin taasina oo wax la derderaa ma jirto waxaan qofka dee wax cadoo saameyn ku yeeshun baa jira dadka macdanta gurtaa way waashaan midda kale waxyaalahan dadka waalaya macdanta gurtaa way jirtaa dad badan oo intay macdintaa ku khalkhalay baa jira horta waxaan marka aanad aqoon u lahayn ee aad daf tiraaho ee aad intaad dul tagto intaad maskaxdaada geliso marka hore waxyaalaha lagu waasho waxaa ka mid ah intuu qofkii maskaxdiisa marka hore geliyo macdan baad soo helaysaa oo taajir baad noqonaysaa oo milyaneer baad noqonaysaa macdintu waa qaali wax yaroo intan leeg wax yaroo imika quartiskan yar buu moodayaa diamond qofkiiba waa qof aqoon lahayn hayse moralkiisiiba hay noqonaya haddana moralkiisiiba dhulka noqonaya marka la yidhaaho waxaan macdan maahe $1 lagaa siisan maayo iska turniyo qofkiiba moralkiisii down noqonaya haddana waaliba ku sababaya waxaas waali caadiya inuu qofkii waashu maryaha dhigto way ku sababaysaa midda kale waalida sababaysaana waxa weeyaan badanka dadkan macdanta gurtaa way qaylaan jaad bay qaadanayaan ruucyo way ku dulqaylayaan godkii bay ku dulqaylayaan markaa waxay ku dulqaylaanba kuwaartis yar bay helayaan tusaale ahaan dhagax yaro kuwaartiskan oo kale ayay bil u dul fadhiyaan ama 6 bilood u dul fadhiyaan god markay god u dul fadhiyaan 6 bilood kuwaartiska yar inta leege aan qiimaha badan la siisan ayay kuwaartiskaas kaga soo baxaya godkii markuu kuwaartiska yar cadi kaga soo baxo ayay qofkii moralkiisii baa wuxuu oranayaa diamond sunaxaya moralkiisa kor u baxaya ninka balwada lana ma hadda sida dadkan oo ka moralkiisu ka dhow yahay waliba marqaanka wax tusa marka qofkii inuu waasho naxdin buu doorto dhaqaaqiba waayay marka la yiraahdo waxaad ku xiiqaysay 6 bilood meesha u fadhiday waa quartz naxdin baaban u dhaqaaqaynba ilaa waa aqoon la'aanta weeyaan waxaan markuu aqoon lahayn naftiisa u sheego inuu dheeman helayo qofkii dheeman waayo wixii uu ka dhigayaa inaan wixii cilmi inuu u bartaa loo baahan qofkii wixii bartay marka waxyaalaha waalida keenana waa waxyaalaha in maskaxda radioactivity-gu taabtaana way jirtaa maskaxda maskaxda naafeeyo oo aad waalataana saasina way dhici kartaa laakiin waxa ugu badan ee sababa waa taa weeyaan inay qofka moralkiisu down noqonayo intuu kor u kaco haddana dhulka moralkiisu gelayo waxyaalahaas sababa in qofku iska ka dhiga badi marka beri baa nin dhinac qalalay intuu buur qotay tusaale ahaan imika radiation-ka imika haddii maanta oo dhan aad ku jirto god imika xisaabtan hoose idinku fahansiin doonaa radioactivity-ga kayaanay dadka wax yeelaya heerku gaadho iyo kaan dadka waxba yeelin marka imika maxaa saameeya imika tusaale ahaan ninkaa imika dhinacu qalalo oo kale maxaa dhinaca inuu qalalo ku sababay radioactivity awoodiisa aan ahayn oo jirkiisa aanu qaadi karin baa ku dhacay
marka de inuu neerfahana waxyeeloobaya marka waxa jira aanay neerfahaas dhimanayo dhay noqonaya marka neerfahaas markay dhay noqdaan qofkii de qof kala dhantaano noqonaya markaba inay dhinac shaqeyn waayo inuu dhintaba wax yar buu jiraa dadku way dhintaaba qaar aanay inuu qalalo inuu de marmarorsamaba oo neerfahan waxaan hadii ku shaqeey imika gacantaadan hadii imika istaagto imika tusaale faaliga oo kale neerfahana baqbaqtiyan qof baa imika tusaale ahaan lugtana ku baqtiyaysa neerfaha ka dhimanayo gebigeedaba qaadi kari mayso bilaa dareen bay noqonaysaa wax la laalaadinay noqonaysaa marka waa saas oo kale qofkan inay dhinacba qalale hadii lagu ilaaho de waa la soo baadhayo wax sababo kalena way dhici kartaa oo qalalay laakiin badana radiation markuu qofka taabto god uu qoto aanu radiation-ka iska cabirin meel walbana la iskama galo mid kalena saacada la qaata radioactivity-ga sheegaysa marka radiation-ka saacada sheegaysa waxay ku sheegaysaa godkaagan ma leeyahay radiation jirkaaga aanay wax yeelayn kara mise malaha hadii uu leeyahay radiation jirkaaga wax yeelayn kara deema galaysid godkiyo wad ka joogsanaysaa iyo iga daawad oranaysaa laakiin hadaanu lahayn de wad qodan kartaa haduu laakiin leeyahay radiation de inaad qalabkii laga xidhanay radiation-ka inaad doonato weeyaan anti radioactivity inaad doonato weeyaan dharkii laga xidhanay de marka inaad iska gasho maaha godkii marka waxyaalahaas sababa inuu qofka de dhinac qalalana maxaa saameeya dadka qodan iyo macdinta san horaba halkan baa idin ku sheegay waxa saameeya waxa ugu badan ee saameeya waa balwada horta balwada ka koobo waxa saameeya waxa labaad ee saameeyana waxa weeyaan waa radioactivity-ga horta radioactivity-gu meel walba kaagama soo baxayo laakiinse godadka inay macdinta qaar ba radioactivity way kala duwan macdinba radioactivity gaar ay leedahay waxa ugu radioactivity badan horta waxa san filayo waa uranium ta filaya marka uranium tuna dusha hadaad saacada kaga qabato ama aad ka eegto wax badan ku yeeli mayso uranium tuna mid kalena in sheega waa mid bacrimisan oo wax la isku haleyn kara maaha iminka tan nuclear-ka laga sameeyo radiation-keedii baa la keediyo de waa wax ku dilay noqonaysa marka lagu keediyo marka radioactivity bay sii deynaysaa iminka uranium tan iminka waxaan iminka uranium tan iminka hadaad jeebka ku sidato muddo sanada de wad dhimanaysaa oo waayo radioactivity bay kugu sii deynaysaa oo jirkaagii baa gelaya maanta dambe way ka boodaysaa marka waa saas oo kale saacadan idinka tusi doona saacada iyadoo lagu cabirayo aad arki doontaan bal qaabkay u saameynayso wax marka saacadad ku fahmi doontaan marka waa exactly waa noocaas oo kale marka halka marka aad maraysaan radioactivity-ga mar walba marka god galayso ama aad macdan baaranayso ama aad buur marayso ama markasta hadii aad kolayba god qodayso oo mid kale radioactivity-gu kuma saameeyo badankiisu radiation ka soo baxaya macdintu badanaaba de kuma saameeyo inaad agmaris iyo waxa kuma saameeyo inaad in badan dul taagnaato oo kale markaba imika tusaalaan hadii aad wax iska dareento imikaba adigoo god ku jira ama wax qodanayo ma macdan hadii aad iska dareento inuu shucaac ku soo hayo ama wax ku haystaan waa inaad meesha ka baxdaa tusaalaan dhagahoo kale ayaa dam noqdo qofka oo kale waxyaalahaas oo kale hadaad dareento inaad ka cararta meesha ama jirka oo kale haduu ku cuncuno jirka oo kale ku cuncunayo waxyaalaha radioactivity-ga leh jirka oo kale ayaa ku cuncunaya wuu ku gubaya oo kale diirkan uu ka mulliya radiation-ka qaar macdinta qaar waa sunba jirkan ayaa gebigiisuba ku daadanaya markuu ku daato waxyaalaha kansarka lagu sheegayana waa jirkan oo ku daato weeyaan marka waxaas sababaya kansarkan inuu diirku ka dhaco kansar bay sababaysaa iyadna marka waa waxyaalaha ay kugu keenayso marka dareento in jir xanuun iyo wax kugu bilaabeen marka waa inaad godkaas iskaga baxdaa hadaad saacad sidanood iska cabirin baalka radiation-ka marka mar walba inaad ka feejignaato weeyaan marka waa saas oo kale marka halka hadaynu kaga nimaadno intaas marka inta hadaynu halka kaga nimaadno SV waxa weeyaan waa cabirka lagu cabiro radioactivity-ga marka radiation-ka cabirka lagu cabiraa waxa weeyaan waa SV-ga hadaad maqasho milligram SV baa la yiraahdaa milligram SV tan waxay u taagan tahay milligram waxa weeyaan waa halkii SV wuxuu dhigmaa 1000 milligram SV
marka halkii sv wuxuu u dhigmaa 1000 milligray marka 1000 buu u dhigmaa halka sv waxa uu u dhigmaa 1000 milligray sv marka sv waa unit kan ma fahanteen marka waa sida marka waa milli sv weeyaan imika milli haddaad maqasho tusaalahan centimeter oo kale waxaad aragteen halkii centimeter inuu kula mid yahay inay boqolka centimeter ma inay kula mid tahay 1000 mitir inay boqolka centimeter inay kula mid tahay 1 mitir waad aragteen kunka millimeterna waxay kula mid tahay 1 mitir ma 10,000 millimeter waxay kula mid tahay 1 mitir waa saas oo kale exactly ama xisaabta calculator ka baan ku dhufto tanna waa saas oo kale waa milli waa sida centimeter meter iyo millimeter ay kala baxaan oo kale weeyaan marka wax meel kale keemi ma aha ku khalkhalina marka xisaabta inkastoo aan ugu talagelin xisaabta baro imika waxaan inaan yara guda galmo ma rabaa laakiin unit ka hada dusha uu ka taqaan xataa waa caadi oo saacaduna ka akhri taqaan marka imika tusaalahan يعني halkii sv wuxuu kula mid yahay 1000 milligray sv weeyaan marka tusaalahan centimeter-ka oo kale hadaba centimeter-ka dadku wada yaqaanaan iyo meter-ka oo kale tusaalahan dadku waxay idhaahaan halkii meter waxa uu kula mid yahay 100 centimeter 100 centimeter buu halkii meter kula mid yahay marka 100kii centimeter xisaab bay yara baahan tahay halkaasi tusaalahan 100kii centimeter waxaad ku dhufataa inay hadaba millimeter bay rabnaa in la soo baxno 100 waxaad ku dhufataa 10 waa imisa waa 1000 marka times marka tiraaho inay marka 100kii centimeter halkii meter waxay kula mid noqonayaan marka waa 1000 bay kula mid noqonayaan meter marka waa saas oo kale waa milli weeyaan milligray millina hadaad maqasho waa 3 zero bay u taagantay m-tire waa 3 zero bay u taagantay m-tire 3 zero bay u taagantay hadaad maqasho waa intanay u taagantay inta m-tire waa intanay u taagantay marka waa saas oo kale marka insha Allah inay 3 zero markay la socdaan m-taas raacaysa waa milli baa lagu leeyahay waa milligray weeyaan marka waa caynkaas oo kale marka waa intani 1000 bay u dhigantaa milligray marka 1000 milligrayna waxa weeyaan aan idin sheego wali ma faahfaahin yaro guud ka sii halka idin ku yar noqday 1000 markay gaadho waa xadiga inay dadku halista ugu gaadho radiationku xadiga dadka jirkooda uu ku saameeyo ee uu dhimasho ku gaarsiin karo heer dhimasho uu gaarsiinayo ama heer kansar qofka ku dhaco uu gaarsiinayo waa xadiga waa 1000 msv hadaad gaadho qofku dhimasho ku dhaweey dhimasho u diyaara waa heerkii dhimashadu taagay markuu radiationku cabirkiisu inta ku noqdo qofka radiation inta leeg haduu helo waa heerkii dhimashada marka waa saas oo kale marka tusaalahan meelaha laga shaqeynayo oo kale inay tusaalahan xisaabba waxaan lagu soo saaraa imika meel radiation ka baxaya dad dul taagneed sanad de xisaabaad ku soo saaraysaa imika MSV gan imika tusaalahan USV hadaad maqasho waa imika kunkan MSV waa heer sare weeyaan waa heerkii dhimashada weeyaan kun MSV markuu gaaro qofku marka halkii SV mar walbana iska ilaaliya saacadaha waxa jira qaar SV kaliya sheegaya kulli way jiraan saacada SV kaliya sheegaya marka laba SV haday noqoto waa khatar dhaaf waa laba jeer baad dhimatay uma dhawaan kartid aagaba marka badana saacadu laakiin MSV waliba tanay sii sheegan MSV saacad dhaafta in kastoo jirin baaban islay waayo kaasi dawar dhimashaba marka MSV gaasi saacadu badan ka wada sheegan iyo USV na waxa weeyaan halkii SV wuxuu dhigmaa 100,000 oo USV marka way ka sii hooseysaa sababta loo sii yareeyay waxa weeyaan waa unitka caadiga ah ee loogu talagalay weeyaan SV dani marka waxa loo badiyay tiradu waxa weeyaan si dadku iskaga ogaadaan radioactivity-gu de goor horeba u ogaadaan dadku waxaan radioactivity-ga meesha yaala inuu yar yahay iyo inuu badan yahay si ay u ogaadaan ba sababta loo badiyay waxa tiradan sababta loo badiyay waa taa waa 100,000 halkaasi zero ba ku dheeraad waa 100,000 oo SV marka waa saa meewa 1 milyan inay sabab waa 100,000 oo SV weyn waa saasi sax ku tahay marka tusaalahan inta markaad fahantaan calaamadda waxaad ku arkaysaan waxa weeyaan waa danger
وعلامات هذا الأركتان ومير radioactivity تصالان nuclear كأوكله uranium تمعدن تلا إلى هوكله radiation بيلده هو الصن وحيالها الصن تايو نبى لوسو دشي علامات radiation كوحيالها له وحيالها الصن تا مركا ميل بورد نوع عاسك التاجية هذا الأركتان إسكا إلى لويا معناه هو radioactivity بميشان كتيرة تصالان مينا ده أوكله علامات نوع عاسايد لفت هذا السارة ميشا بامبوين كقر حين ضد كشو marka calaamadaas oo kale waa calaamada hadhow ku sheegaysa meeshaas in khatar tahay in kale waad iska ilaalinaysaa meel waxa iska taagay waa meel uranium laga qodayo ama radiation ka dhow yahay ama sun ka dhow yahay weeyaan marka waa in iska ilaalisaa calaamada marka hadan saacadan u gudbo halkan USV bay sheegaysaa xisaabtan yareed arkaysaa waxa weeyaan imika hal Vermont bay halkan ku arkaysaa tusaale ahaan imika halka waxaad ku arkaysaan USV per hour saacadii inta USV ee radiation ee aagan taagan tahay ka baxaya ay ku sheegaysaa imika tan marka waa 0.14 USV per hour saacadiiba waxa qaadanaysa oo ka soo baxaya meeshan taagan tahay 0.14 USV marka 0.14 USV marka meesha ka soo baxayaan de waad iska garanaysaa radiation ku cabirka waa wax yar weeye waa wax yar weeye marka de waxay tahay waad fahantay man filaya markay inta marayso markasta halka inaad iska eegtaan weeyaan waa 1 milyan oo USV weeyaan halka markii way naga yara qaldantay qaacidadu marka waa 1 milyan USV weeyaan halkii SV waxa uu dhigmaa halkii SV maaha waxa weeyaan waa halkii SV halkii SV waxa uu dhigmaa 1 milyan oo USV marka qaacidada yarsaas ay qurbaysaa marka 0.14 USV markay taagan tahay marka waa saacadii 0.14 USV baa ka soo baxaya aagan buu kulay marka tusaale ahaan calculator-ka hadaynu qaadano sanadkii imisa ka soo bixi kara marka sanadkii waxa kugu soo baxay waa inaanay kun gaarin kun hadaa doonaysi inaanay khatar aanad ku jirin waa inaanay gaarin ma sheegaya 100 milyan waa inaanay gaarin sanadkii waxa kugu soo baxaya marka maalintii waa 24 saacadood times marka 24 saacadood waxaad igu dhufanaysaa kansar baad u dhawaanaysaa inaad qaado haduu radiation-ku aad kugu bato waayo kansar bay sababaysaa marka tusaale ahaan inay 24 saacadood weeyaan 24 saacadood times inay 0.14 waa 3.36 24 saacadood 3.6 bad qaadatay USV waatan marka 1 milyan oo USV inaad qaadan baa la rabaa sanadkii bal waan xisaabina aad buu yari radiation-ka marka radiation-ka mar walba inaad iska la cabiro weeyaan oo la eego X-ray-ga waxa kugu soo baxaya tusaalaan dadka X-ray-ga ka shaqeeyo oo kale waxa la yiraahdaa kansar bay khatar u yihiin dad badan baa shakiyo xataa inteere lagu hayo ma garanaysaa inay lagu sawirayo oo kale inay lafahooda inteere lagu sawirayo ayaaba qaar yiraahdaan kansar bay ku dhacayo ka baqaan dadka qaar oo radiation bu soo deynaya marka waa waxyaalaha sababay radiation-kan xisaabina marka maalintii waa 3.36 weeyaan USV marka waxaad ku dhufataa bal 360 maalmood waa sanad waa 1209 SV weeyaan waad arkaysaan waxba ma hadda waa wax yar weeyaan waa intan bay uma dhawaba intii lagu dhimanay ee khatar tahay marka bal waxaad ku sii dhufataa bal 20 sano bal 80 boqolba ku dhufasano 100 sano inoogu dhufo si aan bal cimrigaaguba uu bal dhamaadkiisa aynu eegno waa 120 oo SV waa intaad nooshahay radiation-kaasi waxba ku yeeli maayo weeyaan macnaheedu radiation-ka halka ka baxaya waxba ku yeeli maayo marka waa saas oo kale markasta marka inaad xisaabtu soo socoto weeyaan marka halka waad ila fahantay ma filaya inay radiation-ku wuxuu yahay saacadii weeyaan imika inta wuxuu sii deynaya USV 0.14 USV waa cala saacad ayuu inta aagan saacadii intaas ka soo baxaya radiation talag ba saacadii ka soo baxaya meeshana taagan tahay ama dhagax oo kale ama macdan baad arkaysaa intaas soo deynaysa saacadii oo waxba ku yeeli mayso khatartii uma dhawa marka waxa laga yaabaa macdanaha qaar baa intay ay kugu baxay radiation-koodu 5 sano kadib oo kale kansar kugu sababi kara ama meelaha qaar baa radiation-ka tusaalahan dadka X-ray ka shaqeeya waxa la isla ogaaday in 5 sano kadib inay dadka badankoodu 5% dadka ka shaqeeya meelaha X-ray-ga ee radiation-ka X-ray-ga waxa la yiraahdaa bahalahan lafaha lagu sawiro
aanay lafaha dadka lagu sawiro aanay waxyaalaha maaragtay dadka ka shaqeeya 5 sano kadib cancer baa ku dhaca bay ku leeyihiin 5% kamid ah dadka 5% kamid ah dadka 5% of the people that work is the x-ray waxa khatar u yihiin ama ku dhaca cancer 5% kamid ah 100 qof ee la soo qabtay dadka kamid ah 5 qof oo kamid ah cancer baa ku dhaca marka waa x-ray-ga radiation-ka ka soo baxayaabana oo sababayra marka tusaalaan halkan kugu tusiya radiation-ka ka khatarta iyo ka kale marka halkan saad ku arkayso wuxuu ku leeyahay single dose waa xaddiga khaliya ee fatal with weeks imika xaddigan aad arkaysaan halkan aad ku arkaysaan waa 10,000 oo MSV marka labadaas zero hamoodina inay 1 milyan inay tahay hamoodina waa 10,000 oo MSV weeyaan waa 10,000 MSV weeyaan waxa weeyaan waa intii halkan aan idinku soo sheegay tan lafteeda dhimasho sanad imika aan idin sheegay 1,000 kaasi haddii 1,000 kaas oo radiation aad qaato 1,000 MSV aad qaato sanad baad gudihii baad ku dhimanaysaa sanad gudihii haddaad intaa qaato marka horta heerkan waa heer khatar weeyaan waa heerka cancer ku qaadayso ama jirkaaga ku go'ayo weeyaan ama neerfaha ku dhimanayaan weeyaan heerkan 1,000 MSV marka kani wuxuu ku leeyahay toddobaad imika ka waxa laga yaabaa inuu toddobaad kadib in badan kadib inaad dhimato laga yaabaa heerka markaad gaadho ama sanad kadib inaad dhimato laakiin kan wuxuu ku leeyahay heerka haddaad gaadho wii gudihii haddaad heerka ku gaadho 10,000 oo MSV haddaad ku qaato radiation خلاص هو تدوبات جوديه بعد كل ما نسا أي صواب يسا واحد دقيقة تدوبات جوديه كل ما نسا هدي أنت تدوبات جوديه عاد كقاطو يعني راديو أكتيفيتي شركة أقرأ أما ميل أنت سو راديو أكتيفيتي وكصوب حيو التهجني أما عاد واحد هيستي راديو أكتيفيتي أنت لا يكصوب حيو أما ميل راديو أكتيفيتي طبعا كون أو إم إس في جارية وكصوب حيو هذا التهجني تدوبات جوديه بعد ما نسا بكلية هي marka waa saa radioactivity kaasi intaas uu saameyn ku leeyahay inta leeg markuu ku soo baxo marka tusaale ahaan imika kuwan oo dhani waa radioactivity ka saameynta keenayo oo dhan buu halkan laga hadlayaa single dosage will cause radioactivity sickness include NASA's lower blood cell count not fatal imika tusaale ahaan oo kale halka wuxuu ku yiri waa qiyaasta keeni karta imika waan idin sheegay qofku sax ma noqonayo hadii kun ka gaadho waa khatar marka kun MSV halka saad ku arkaysaa waa kun MSV hadii soo dhaweeyo halkan waxaad ku arkaysaa waa kun MSV weeyaan MSV waa unit ka lagu akhriyo lagu cabirayo weeyaan point-ga iyo inta ha akhrin point-ba halkan u dhaxeeya marka ha akhrin ha moodin 10,000 iyo wax marka labadaas zero waa dheeraad waxba akhrin labadaas zero marka waa kun MSV weeyaan dot hadii dhinaca ka marto dhibic caadi hakad iyo dhibicda mar walba inaad kala aragto ma jeclay marka dhibicda tirsanina wixii dhibicda xagga ka xiga marka dhibic hadaad meel ku aragtaan waxba halka wixii ka xiga waxa ma tareen dhibic zero yaalka ka raacay waxa ma taran marka hakad kan iyo dhibicda mar walba isku qaldin hakadka hadaad aragtaan waa hakadka kunka u dhaxeeya marka tiradaada kun gaadha hakadka u dhaxeeya weeyaan marka kun MSV weeyaan kun MSV wuxuu ku leeyahay in tirada inay xanuun kugu keento iyo la labada waxa weeyaan waa hunqaaco oo kale inaad la qiyoto ayay keenaysaa oo ay hoos u dhacaan tirada dhiigaaga cad unugyada dhiigaaga cad markaba hoos u dhacaya oo la labay kugu keenaysa waa in la waa heerka khatarta ee dhimasho keeni karta xataa markii kun MSV gaadho kun MSV markii gaadho inay radiation kugu baxaya waa dhimasho markii kugu keenayso ama khatarda waa riski dhimashana waad iskaga dhowday mar hadda la labowtade oo radiation ahaan aad u labooto oo qaaca ku qabato oo dhiigaaga cad hoos u dhaco waa in yarood ku sii jirto oo ka baxaysa marka tusaale ahaan waa saas oo kale marka hadaynu hoos ugu sii socono tusaale ahaan marka tusaale ahaan halkan waxaad ku arkaysaan dental x-ray waa 0.01 buu soo saaraa 0.01 ms 0.01
aanay MSV buu soo saaraa marka dental x-ray waa dental waxa weeyaan waa kan ilkaha ma aragtay qofku marka tusaale ahaan aanay waxaad aragteen imika tusaale ahaan marka tusaale ahaan ilkaha dhakhtarada aanay ilkaha sawra mashiinadan ilkaha lagu sawro markaad xidhanayso waxa lagu xidhayaa mara lagu xidhayaa aanay weyn oo code weyn waxa lagu xidhayaa radioactivity ka celinaya si aanu jirkaaga u saameyn oo wax u yeelin radioactivity ka soo baxaya mara ka celinaysa ay lagu xidhayaa code weyn oo ka celinaya marka waa dental x-ray waa 0.01 baa ka soo baxaya MSV waa radiation inta leeg baa ka soo baxaya marka 0.01 MSV markay ka soo baxdo qofka ka shaqeynaya oo kale saameyn bay ku yeelanaysaa hadduu in badan ka shaqeeyo tusaale ahaan haddii 0.01 MSV uu maanta oo dhan aanay maalintii hadduu imika tusaale ahaan sanad gudihii hadduu ku sawiro haddaan imika xisaabino tusaale ahaan haddii imika sanad uu wado sanad imika imisa 0.01 hadduu marka keliya la shido ayuu soo deynayaa inta radio x-raygu inta dental x-raygu 0.01 bal waxaad ku dhufataa bal 100 qof maalintii 100 qof bal ka soo qaad inuu dental reega saare 100 maxay noqotay waa hal maalintii hal MSV baa ku soo baxay radiation u qaatay qofkaasi bal waxaad ku dhufataa 300 iyo aanay 60 maalmood sanadkii musu qaadanaya 360 buu qaadanayaa aanay MSV 360 MSV buu qaadanayaa 360 MSV buu sanadkii qaadanayaa bal waxaad ku sii dhufataa aanay 360 ka MSV 5 sano bal ku dhufo ama 10 1800 MSV buu qaadanayaa marka eeg waa sababta lagu leeyahay aanay dadka x-ray ka shaqeeya boqolkiiba imika tusaale ahaan accumulated dosage estimated case fatal cancer years later people wada arkaysa marka halka waa sababta loo leeyahay dadka aanay marka waa sababta loo leeyahay qiyaastaasi waxay keenaysaa dhimasho waxyaanay research la sameeyay baaritaan la sameeyay imika waxaan aqoonaa ma wax aynu inagu sameynay waa baaritaan la sameeyay ayaa sheegaya qofka markuu aanay dadka boqolkiiba 5 waxay u dhintaan radiation ku baxay oo kun gaaraya kun MSV radiation gaaraya markay sanado badan joogaan meel radiation kun gaaraya ka baxo waxay u dhintaan cancer ay u dhintaan boqolkiiba 5 kamid ah waa imika baaritaan la sameeyay weeyaan oo xaqiiqo ah weeyaan dad markay sanado badan radiation kun MSV gaaraya ku baxo tusaale 10 sano kun radiation kun MSV gaaraya ku baxay qofka dhimasho diyaar u yahay bay ku leeyihiin ama cancer inuu ku dhaco dhimasho ma cancer inuu ku dhaco boqolkiiba 5 ayaa dhacday buu boqolkiiba 5 kamid ah dadka aanay ku baxay qaar baan ku dhacayn qaar uu ku dhacaya marka malihin uu ku wada dhacaya dadkii boqolkiiba 5 ila fahma boqolka qof ee radiation ku baxay in badan ku baxay kun MSV radiation ka gaaraya